waan islaam walaalayaal meel walba joogteen soo dhawaada koleeti shogolood iyo biyo waxaan haye mala waxaan rabaa halkan inaan kasii wado arrintii Fatiha absiga inaan halkan kasii wadaan rabaa walaal horta waxaan raali gelinayaa shalayto markaan dhahay magaceeda ma farxiya mise ma Fatiha xoogahoo haddii aad dib u daawato waxay u egtahay inaan jesayo gabadha camal waan karaan celinayaa taa iyada marka waxaan rabaa xagga ragga inaan aan u godob galo runtii horta diinta islaamta haddii markaa la yidhaahdo qur-aanka kariimka 114 haweenka aad ayay u sharaftay marka badidooda ragga si haddana wadaadada Soomaaliyeed wadaadada siday u badan yihiin Soomaalidan ay u badan tahay waxay aad iyo aad u adeegsadaan sunniga runtii nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri kitaabkan quraanka 114 ayaa nigu filan informationka aad u baahan lahaydeen oo dhaqan ahaan iyo wax walba aad u baahantiin informationka quraankaas ayaa nigu filan book dambe oo quraankaas ka dambe oo la qoro yaan la isticmaalin wuxuu ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa way arag wuxuu ahaa vision qof mustaqbalka arko oo hore u arko marka sidan ayuu ogsoonaa marka adiga uu gardaarinayo marka sababta uu gardaarinayo sababtan ayay ahayd ala kulli xaal dood ugu weyn oo hadda maanta haysato Soomaalida waxay tahay kufsi miya gabadha hadduu ninka uu qabo u tago runtii sababaha keenaysa inay kufsi tahay haddii marka la barbar dhigo haddii marka adiga gabadhaada aad dhaqaaleysanayso gabadha aad wada joogteen dhaqaaleysanayso oo jacayl inaga dhaxayso oo runtii labada qof inay isku kalsoon yihiin ayaa habboon badidooda waxaa jirta guuro la isku khasbay wiilkii gabadha la isku khasbay gabadha aysan rabin ninka marka taasoo ma sii faraaqeynayno laakiin haddii marka adiga aan dib ugu laabto ninkii naagtiis qabo haddii marka kalsooni meesha jirin ninkii uu yahay nin maxamed hadda aan saas dhankaas baan sii aaday walaalkay aan igu soo qaaday walaalkay wuxuu ahaan jiray qaadku aad u cuni jiray maalinba maalintay dhaafto gabadhu qabay wuu dili jiray mushaarka markii la qaato mushaarku markuu qaato shilin maysan arki jirin haddii ugu badato 1,000 shilin ayuu siin jiray lacag Kenya uu dhihi jiray ku masruuf 1,000 shilin buu dib ugu soo laaban jiray uu dhihi jiray 1,000 shilin aan shilay ku sii aab hadday dhahdo maanta qada ma laha mise quraac ma laha mise casho ma laha marka gabadhaas gumeysi waxay ku jirtay ana loo agteysan jirin runtii aniga ciyaal baan iska markaa iyada laakiin qaladaadkii dib ayaan ka fahmay inay qalad ahayd waxyaalaha ayad oo markaa walaalkay ku dhaqmin jiray marka qofkaasi asagi haddii ay diinta siiso garab ragoo dhanna uu garab siiyo ninka asaga gabadhaas walaal baa la dhashay hooyaa dhashay aabaa dhalay raggii la dhashay gabadhii intay garab istaagila halkay garab istaagayaan ma walaashaada garab istaagayso oo ninkeeda uu yahay alkuluste oo qaad maahan wax walba run ahaantii hadda uu ka hanuunay tabliiqu ku jiraa kama baxo waa nin wanaagsan sida aniga hadda la ii sheegay xaasku qabana hadda si fiican u dhaqaaleysta runtii dadku way ka soo waantoobaan way ka soo hanuunaan waxyaalo qaarkood ay ku jiraan ma ahan walaalkay inaan dacaydeen laakiin si qofkaasi hadduu wadaadku uu dhaho ka waran wuu saxan yahay ninkaas gabadhaas ayadoo dilan oo ka muuqato dilkeeda wajigeeda ka muuqato uu habeenkii ninka u tago ka waran way hanaaqsan tahay hababa kama bahayso marnaba kama hayso hawada ina caawa ninkeeda la saacad sababta tahay waa la dilay
shalay ma ahayn daraa la dilay maalinba maalinta ku xigta ayaa la dilaa balse hadduu dhaho saaxib waa dembi adiga dembi bay tahay ina ii diido aniga tagmada aan kuu tagay waa dembi hadduu yidhaahdo ka waran oo ninkaasu har iyo 20 saac gabadhaas gumaysanayo miseba si bini aadanimo ula dhaqmaayo hadduu dhaho caaw diintaa sheegtay nin oo qof diin bedelaya ma laha dadkan asalkeeni hore waxaa jirtay markii haddii aad rabto hadal miseba tala waxaa la aadi jiray wadaadada lasoo ogaa fikradahooda lasoo ogaan jiray oo la dhihi jiray wadaadow sidan maxay tahay sidan maxaad ka dhihi lahayd sidan tale iga sii camal wadaadadani waxay ahaayeen haddii ay fasirkooda kusoo gaarayso mise dacwadooda kusoo gaarayso cajaladooyin inaad ka dhegeysto waxa ay sheegeen runtii ma jirin platform hadda sidan platformka anaga haysta camal dadka badana ay haystaan sida ka hadin mar walba ka soo dood fathiya oo shaqo wanaagsan hayso ma jirin hadba dhinac baa u boodaya waxaan rabaa hadda inaan Afghanistan hadda Talibaankii baa dib u soo laabatay oo qabsatay oo madaxtooyada ka degtay maanta run ahaantii mid ugu horeysay igu soo dhacdana waxay ahayd hadda ka hor markay Talibaan ay qabsatay waxay raadsadeen gabdhaha akhristo iskuulka akhristo iyo gabdhaha jaamacadooyinka akhristo qaarna waa la dilay qaarna way ka carareen ilaahay ka badbaadiyay marka haddana waxaa adiga ku soo dhacday inay sida ay sameyn doonaan ninka ragga sababta u diidan yahay inay gabadha aqoonsi yeelato ee gabadha maskaxdeeda ku socoto oo mar walba lagu leeyahay control baa tahay control ma tihiin quraanna meeshu sheegay ma lahan quraan hadduu sheegana isoo sheeg ayadaas sheegtay igu dhaani dadka soo mar walba soo quraan baa sheegay lagu leeyahay control ma tihiin naayana ay keensiisto wax xanaaq baa mugto cayaalaha qaarkood aan loo gagsin karin ay jiraan control ma tihiin waxa lagu dhahay mar walba control adii laga dhacay ina control tahay ayaa wax ka jira dadka miyaysan fikirin marka raggan sababta ay u diidan yihiin inay gabdhihii ay wax bartaan tan maanta taagan ayay ka soo horjeedaan dadkan waa dad fikiray horena u soo fikiray ogsoonna waxa dhici doon mar horta haddii aan ku soo aniga haddii aan qaas ahaan aniga aan iska hadlo horta subax walba salaada aan u kacaa salaada subax waan tukadaa kafee iyo shaah ayaan karsadaa alaa kulli xaal balse hadduu maanta qof idhaho kaal waryaa subax walba aan u kacano salaatuleyl waan la barmayaa qofkaas sababtaan ugu kacay salaatuleyl maxay tahay ma sunna ma farala sababta waxaan rabaa aniga inaan hurdadaas aan hurdaayo balse aniga ma ogsooni salaatuleylkaasu inaani faa'iido weyn igu jirto xagga ilaahay iyo teeda kale fikradda inay maalinta maskaxda ku furayso wasax maskaxdaada si fiican kugu furayso aniga taas ma ogsooni laakiin waan ka marmiyo 2 saacadood oo si saaxanayo intii salaada laga gaaray ayaa marka ayaan u daliilaya marka isbedelka weydiidaan waxa ugu diidaanna waxay tahay ay faa'iido ma ugu jirtaa way su'aasha ragu faa'iido ma ugu jirtaa way su'aashu waha waxaasad sababtaasaad u arkaysa inay dadkii saa u soo yiraaqo magacaada waxa ugu daran in gabdhaha mar walba rag saa u soo horistaan saaxiibay adaa dhiban walaalay adaa dhiban ya ani gabdhaha ila dhashaan garanayo mar walba la dili jiray oo wallahi aan darbaax waa soo ogaan kartaa haddaad beenti umalays anoo yar aan darbaaxay sababta aan darbaaxanay wix igubay marka ayada ayaa haddana igubay aniga waa dhacantihiin walaalayaal waa dhacantihiin raggan waa rag soo tashaday quraanka 114 meelay sheegayso oo lagu dayacay hubeenka malahan mar walbana xadiidku waxa loo adeegsado waa sababahaas
ragganna ma rabaan isbedel wax isbedel ay rabaan ma lahan inay ku xoogaan ay rabaan ay ku xoogaan haddii aad marka adiga raali ka ahayn waa xoogitaan taas waa xoogitaan miyaan isku diidaya marka haddii aan hadalka intaas nagu sii badanin wallaahi waan karkarsanahay maanta la xalaytaan sa afkirayo waxaana daawanin mala mideeda kale waxaan rabaa inaan ka hadlo halkan aan u gudbo sheekh cumul sheekhaasi wadaadkaasi waxaa jira clip youtube-ka aad ka fiirsan kartaa intaas igu soo yaacin youtube-ka aad ka raadin kartaa uu leeyahay nabigeen maxamed sallallahu alayhi wasallam waa gaal uu leeyahay taasu waa la damiyey waa nin ka waran waa nin ayuu yahay diintu sheekh ahaana loo ogsoon yahay ya wuxuu raba ugu dhihi karaa ninka intuu maanta qof dilo ayuu magacaadi uu siday Faafi ay sheegtay ayuu wadada iska maraya wax loo qabsanaya ilaahay unta mala ma jirto bal hadda maanta intii laga doodi lahaa ninkaasu dhahay nabigeen sallallahu alayhi wasallam waa gaal ninkaa dhahay oo wadaadka tii laga doodi lahaa ya Soomaalidu waa tii diin jeclaada waa tii diin jeclaada mar walba oo nabigeen sallallahu alayhi wasallam wax laga sheego sida u yaaci jireen waa tii magacaadi ayaan xirsi nafsadeeda halis u gashay oo mar walba ay bodyguard-ka dawadaas magacaadi ay gadaal iskaga wadeen ya maxaa sababtii looyinkaasu oo dooda loo furi waayey oo sidaa sababta u dhahday maxay tahay loo dhigi waayey waa maxay ninka wuxuu doono u dhihi karaa ha iska mantaqo hadhuu sacaaro dhib ma lahan haddana waxaa ibtilo keentay taasu waxaa ibtilo keentay gabadha mise haweenka mise hooyooyinka mar walbaba garab taagan wiilasha Soomaaliya iyo nimankan Soomaaliya garab taagan maanta faraan wallahi faraan daaydo beelaano balaynayo ya kaca walaalayaal kaca shaqaalaha dad baa shaqeynaya dad baa xaqiin u shaqeynaya u doodaya gaal dhaqo laguma laho adigoo muslimkaaga shantaada salaad waqti tukanayo soomayo si kadaada bixsanayso baa haddana xuquuq leedahay haddana aad leedahay xuquuqdaada garo intaas uma laga rabo intaas waxa loo horseeday oo qof walba u dooday uu u dagaaltamo waa intaas ina xuquuqdaada yar aad adiga leedahay aad garato bis ma aad ku fiirsanin gabar walaasha oo la dilay aad ku fiirsanin ninka dilana dhaga aad ka qaracdo ya war carabeela anaka carabeela naga dhashay xaabataaka naga dhashay ya habeen markay haween ahaayeen ayaa jiri jiray raggan gumeysi aan caadi ahayn ayay hayaan horta Soomaaliya marag baa leh marag kilix baa leh Soomaaliya uma simna ma rag iyo habeen waa ma hadduu ma yahay su'aashaas rag iyo habeenka ay u siman yihiin dadka wada leeyihiin wixii ku nool oo dhan ay leeyihiin xuquuqda bini'aadamka in la fiiriyo waa mid istaagan oo waa mid magacaadi loo wada baahan yahay oo nin walba u baahan yahay hadalkan igu dhamaan walaalo oo igu dheereen oo salaam meel walba joogteen